haddii aad ku nooshahay dalkan aan kuu sheegi doono waxaa kaa mamnuuc ah in laabtoob iyo iPhone-ba aad ku dhex haysatid dalkan iyo in heesaha fanaaniinta caalamka qaadaan aad ku dhex dhageysato surwaal jeans aad xirato haddii aad gabar tahayna waxaa kaa mamnuuc ah in aad goono haafa aad ku dhex qaadatid iyo in gabaarida aad kaxaysid adoo gabar ah si la mid ah waxaa mamnuuc ah inaad wacdid lambaro dibadda ah xitaa haddii ay dankaas soo gasho haddii aadan ku dhalan dalkan aan kuu sheegi doono magaciisa ama aadan hadda ku nooleen nasiib aad u fiican baad leedahay allana ku shukri bal aan kuu sheego dal leh shuruucyo waali ah oo qaarkood halis ku gelin kara marka koowaad shuruucyada adag ee dalkan uu leeyahay ayaa mid kuugu sheegaya kadibna magaciisa iyo cajaa'ibta u gaarka ah bal aan ku sharxo xabsi ayaa lagu gelinayaa haddii heesaha fanaaniinta caalamka qaadaan aad ku dhex dhagaysato dalkaasi ama aad ku dhex daawato aflaanta Ameerikaanka ah iyo kuwa anshax xumada ahba haddii qof uu dambi ku dhex geysto dalkan qofka dambiga geystay kaliya lama ciqaabayo balse qoyskiisa oo dhan ayaa la ciqaabayaa sida waalidiintiis iyo carruurta uu dhalay waxaa kale oo la yaab leh in arday kasta oo iskuul dhigto oo ku nool dalkan oo horay gurigiisa kaga soo qaadanayo kursiga uu ku fadhiisanayo iyo miiska uu buugaagta saaranayo iskuuladana wax kuraas ah iyo miisas ahba ma yaalaan waa dalka North Korea ama waqooyiga Korea Kim Jong-un ayaana madaxweyne ka ah muwaadiniinta ku nool dalkan looma ogola inay wacaan qof ku nool meel ka baxsan dalka North Korea haddii la arko qof wacayna waa la dilayaa sanadii 2007 nin lambar dibadda ah wacay ayaa la toogtay habeen kasta korontada dalkan waa la jaraa dalka oo dhanna waa mugdi sababo la xiriira koronto xumi ka jirta dalkan iyo in aysan lahayn xarumo fara badan oo korontada laga soo daayo waxaa kale oo la yaab leh in 2013 madaxweynaha dalka North Korea Kim Jong-un uu dejiyay habab gaar ah oo ay ragga iyo dumarka timaha u jaran karaan oo kaliya ragga waxay tinta u jaran karaan oo kaliya 10 kan qaab halka dumarkana iyaga ay u jaran karaan 18 kan qaab qofkii intaan ka baxsan tinta u jartana waa la ganaaxayaa waana dambiile muwaadin kasta oo ku nool dalka North Korea gabar iyo wiil midka uu yahay waxaa waajib ku ah in tababar ciidan uu qaato gabdhaha 7 sano markii ay gaaraan ay tababar ciidan qaadanayaan halka wiilashana 10 jir ay ku qaadanayaan tababarka haddii aad ku dhex huruddo adigoo shir kula jira madaxweynaha dalkan Kim Jong-un waa lagu tooganayaa 2015 wasiirkii difaaca dalkaas ayaa ku dhex hurday shir uu shir gudoominayay madaxweynaha dalkaasi kadibna wasiirkii waa la toogtay dalkan wuxuu kaloo leeyahay jadwal taariikheed oo gaar ah kana duwan jadwalada caalamka kalendarka dalkan wuxuu ka bilaabanayaa 15 Abriil 1912 oo ah taariikhdii uu dhashay madaxweynihii ugu horeeyay ee dalkaasi Kim Il-sung muwaadiniinta ku nool dalkan kama tegi karaan dalkan iyagoo aanan wadan dukumiintiyo cadeynaya inay dhoofaan haddii lagu arko muwaadin aanan dukumiintiyo wadaninna waxaa tooganaya ciidamada dalkaas amar ayayna u qabaan cajaa'ibta kale ee u gaarka ah dalkan waa in madaxweynaha dalkaas magaciisa Kim Jong-un aysan jirin qof baxsan karta Kim qofka magaciisa oo ku bilowdana waxaa waajib ku noqonaysa in uu bedelo magacaas maalinta Axadda waa maalin shaqo waxaana la qabtaa shaqada danta guud shaqooyinkaasna waxaa lagu qabtaa gacmaha haweenka ku nool dalkan looma ogola inay gawaari kaxeeyaan iyo in ay xirtaan goono haaf ah oo jilbaha ka koraysa habeenaydii lagu arkay iyadoo wadato goono haaf ahna waa la ciqaabayaa waana dambiile waa shuruucyada aadka u adag ee ka jira dalkan waana dal ka duwan dalalka caalamka oo dhan miye kaligiis talis ah ayaana madax ka ah hadalkiisa oo qura ayaana ka shaqeynaya haddaba haddii aadan ku nooleen dalkan nasiib fiican baad leedahay waxaana ka badbaaday dhibaatooyinkan iyo kuwa ka daran oo aad u halis badan haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar si uu asxaab fara badan ugu gaaro siina share garay aragtidaadana ka dhiibo waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena tan iyo muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaa idin rajayn caafimaad bashbash iyo baraare waxaan ahay Joola Shaakir amaana Allah fadlan haddii aadan subscribe saarin channelkeena ama aadan follow soo dhihin barteena TikTok waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto kana mid noqotid dadkana gaarsiiya meesha aan doonayno